kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media aalaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa wararkii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka qodobada maanta ku daawan doontaan waxa kamid noqonaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka badbaaday isku day dil hadaba sidee ayuu ugu badbaaday muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan waxa sidoo kale muuqaalkan inta aad daawanayso ku soo gudbin doona RSF maleeshiyaadka oo xasuuq ba'an ka geystay dalka Suudaan waxaa sidoo kale muuqaalkan ku daawan doontaan 16 qof ay ku jiraan caruur ayaa ku geeriyootay shil ka dhacay dalka Yemen xogii u dambeeyay ayaa halkan kugu soo gudbin doona waxaa sidoo kale muuqaalkan ku daawan doontaan daadada xoogan oo ku dhuftay dalka Brazil qasaarihii u dambeeyay la soo warinayo ayaa muuqaalkan idinkugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkan furso ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahay muuqaalkan oo share garay like inoo saar soo gaara asxaab badan oo ku maasanta daawashadaada inuu ku bilaabno faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan shil gaari oo ka dhacay dalka Yemen kaasi oo sababay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac shilka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Laxmar ee degmada Al-Madhaf oo ku taala wado muhiim ah oo isku xirta gobolada Abyan iyo Shabwa labadan gaari isku dhacday ayaa waxa la sheegay in ay kala ahaayeen gaari bas oo ay saarnaayeen dad rakaab iyo sidoo kale gaari xamuul ah kadib markii labadaas gaari ay isku dhaceen waxa gaariga baska ka kacay dab iyadoona wararka ka soo baxaya dalka Yemen ay sheegayaan in gaariga uu shidaal uu isticmaalay gaas kaas oo sababay in dab xoogan uu gaariga uu ka kaco waxa wararka sheegayaan in dhammaan rakaabkii saarnaa baska ay goobta ay ku geeriyoodeen waxa la xaqiijiyay geerida 16 qof oo ay ku jiraan 8 haween sidoo kale caruur waxaa sidoo kale la soo warinaya inuu jiro dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dadkii saarnaa labadaas gaari iyadoona xilligan xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala dalkaas Yemen shilalka ka dhacay dalkaas Yemen ayaa mudooyinkii dambe si aad isu soo taraya iyadoona loo aaneynayo wadooyinka oo burbursan dagaalada sokeeye ee si daba dheeraaday ee ka soconaya dalka Yemen sidoo kale darawalada oo aanan khibrad badan u lahayn wadista gaariga shilkan ayaa noqday kii labaad ee ugu dhimashada badan sanadka 2026 iyadoo sidoo kale sanadkii hore ee dalkaasi uu ka dhacay shil sababay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyadoona la sheegay inay ku dhinteen 17 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tire intaasi ka badan dagaalka ka soconaya ee dalka Yemen tan iyo 2014 waxa ka socda dagaal iyadoona dagaalka oo maalinta ka dambaysa uu si yeelanayo wajh cusub wixii warar ay ku soo kordhay ee la xiriira shilkani gaari muuqaaladeena xiga ayaa idinkugu soo gudbin doona markana dalka Brazil waxa ku dhuftay roobab muhiigaan ay sidoo kale daadad kuwaas oo sababay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed buundooyin ayaa la soo warinaya in ay burbureen wadooyin kale oo halbowlo ah dalkaas Brazil ayaa waxa la sheegay in biyo ay xireen iyadoo dad ay ku jiraan amaba ay ku lugoosan yihiin biyaha dhexdiisa waxa socda gurmadkii u dambeeyay oo ay sameynayaan mas'uuliyiinta ee dalkaasi Brazil iyadoo qaarkood la soo badbaadiyay halka kuwa kale ay wili ay ku xaniban yihiin halka daadadku ay ku dhufteen inta la xaqiijiyay 23 qof ayaa ku dhimatay iyadoona sidoo kale uu ka dhashay qasaare hantiyadeed iyo sidoo kale mid nafeed intuba waxaa sidoo kale socda gurmadkii u dambeeyay ee lagu soo badbaadinayo dadka ku jira guryaha qaar goobihii daadadka ay ku dhufteen gurmadka samada bixinta ayaa si isdaba joog ah u soconaya dawladda Brazil ayaa waxay sheegtay in ay sii wadayso gurmadkeeda ilaa ay inta dadka ku harsan biyaha gudihiisa ay ka soo badbaadinayaan waxaa sidoo kale digniino kala duwan loo diray shacabka ee ku dhaqan dalkaasi Brazil iyadoo laga cabsi qabo in goobo kale ay ku dhuftaan roobabka mihigaanka iyo sidoo kale daadadka waxaana shacabka looga digay inay ka fogaadaan goobaha ay saadaalisay ee dalkaas mas'uuliyiinta dalkaasi ee Brazil wixii xogo ay ku soo kordho muuqaaladeena xiga ayaa idinkugu soo gudbin doonaa markana hadii aan aadno dalka Suudaan maleeshiyaadka RSF ayaa xasuuq ba'an ka geysatay dalkaasi Suudaan kooxda RSF ee Suudaan ayaa weerar culus waxay ka fulisay magaalada Mistariha ee waqooyiga ee Darfur halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 28 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 39 qof oo ay ku jiraan 10 haween ah sida ay sheegtay shabakada dhaqaatiirta
weerarkan RSF fulisay ayaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday goobo caafimaad ah iyadoona dhakhaatiirta ay sheegeen in RSF markaana ay ku kaceen falal ka baxsan bini'aadanimada iyo sidoo kale xeerarka caalamka. waxaa sidoo kale weerarkan lagu qaaday mistariha waxa uu ka dambeeyay xiisad qabaa'il ee sii kordhaysay ee gobolka Darfur ka taagneed halkaas oo qaramada midoobay toddobaadkii hore ku ogaadeen in RSF ay geysatay falal xasuuq ah oo ka dhan ah qowmiyadaha aan Carabta ahayn. dagaalka u dhaxeeya RSF ee ciidanka qaranka ee Suudaan ayaa bilowday bishii Abriil 2023 waxaana uu sababay dhimashada kumanaan kun, barakac aan xad lahayn iyo sidoo kale dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka iyo sidoo kale labada dhinac ee ku dagaalamaya oo kala ah ciidanka dowladda iyo sidoo kale maleeshiyaadka RSF. dhibaatooyin bini'aadanimo ay ka mid tahay gaajo iyo cudurro ayaa ka dilaacay dalkaasi Suudaan tan iyo markii uu soo bilowday dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadka RSF iyo sidoo kale ciidanka dowladda. ilaa hadda dalka Suudaan kuma taagna caga badan iyadoo mararka qaar halkaasi ay ka dhacayaan isku horimaadyo u dhaxeeya ciidanka dowladda iyo sidoo kale maleeshiyaadka RSF. maleeshiyaadka RSF ayaa marar badan dalka Suudaan waxay ka geysteen weeraro gaadmo ah iyadoo mararka qaar ay beegsanayaan dadka rayidka iyo sidoo kale goobo caafimaad. wixii xogay ku soo kordhay la xiriira qodobkana wararkeena xiga ayaa idinkugu soo gudbin doona markana haddii aan adno dalka Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la soo warinayaa inuu ka badbaaday isku daydil xilli shakhsi hubeysan uu gudaha u galay aqalka cad iyadoona ciidanka ilaalada ee aqalka cad ay isla goobta ay ku toogteen. xilliga uu falkaasi dhacay ayaa la soo warinayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka maqnaa aqalka cad isla markaana uu xilligaasi uu shir ku jiray sida ay daawacday laanta ee afka Soomaaliga ee BBC-da. wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu yahay shakhsi feeljignaan badan balse xilligii uu falkaasi u dhacay uu ka maqnaa aqalka cad. dhanka kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale weerar afka waxa uu ku qaaday Ilhaan Cumar iyo sidoo kale guud ahaan bulshada Soomaaliyeed isagoo caado ka dhigtay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump aflagaadeynta Ilhaan Cumar iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed isagoona ku tilmaamay Soomaaliya inay tahay dal aan dawlad ka jirin abaar iyo sidoo kale colaado badan ka jira. guud ahaan daawadayaal wararkii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu saameynta badan waanaginta warkankiisa xiga inta dibka u kulmi doono sidaas nabadgelyo. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena subscribe inoo dhig gambaleelkan furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo saar si uu gaaro asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada.